soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ka hadlaynaa dagaalka ka soconaya buuraha Calmis ee gobolka Bari waxa qadka nagu jira agaasimaha la dagaalanka argagixisada iyo wacyigelinta ciidamada dawladda Puntland Maxamed Cabdi Wali oo ku magac dheer Timire waxaan weydiin doonaa oo su'aalo ka weydiin doonaa dagaalkaasi iyo guud ahaan xaaladdu iminka sida ay tahay Timire soo dhawow waxaad markale warbixin naga siisaa dabcan dagaal inuu meesha ka socdo waa laga wada dhageysan yahay bal waxaad warbixin kooban naga siisaa meesha dagaalku ka socdo istiraatiiji ahaan waa meel caankee ah maxayse muhiim ugu tahay kooxdan Daacish meeshaasi oo ay ku dagaalamayaan wasalaamaya awow media kaga mahadcelinaya xiriirka la soo sameeyay dawladda Puntland awow waxa la yiraahdo halkaas gobolka Bari waa gobolka ugu weyn gobolada dawladii kacanku ay ka tagtay waa gobolka ugu geography ahaan ugu adag halka waxa ka dhacay waxa soo galay hore u soo galay kooxaha argagixisa oo ka kala yimid wadamo kala duwan kuwaas oo ujeedkoodu yahay in ay maadaama gobolkan ama Soomaaliya guud ahaan ay ku taalo meel istiraatiiji ah oo caalamka istiraatiiji u ah gaar ahaan dhinaca maranbiyoodka biyaha waxa ay dareynayeen argagixisadu in gobolka Bari gaar ahaan buurahan Calmiska ay difaaciyo iyo talisyo waaweyn ka sameystaan bacdama argagixisada Daacish lagu soo jabiyay wadamo badan oo carabta kamid ah Ciraaq iyo Suuriya ay kamid yihiin ujeedadoodu waxay ahayd laba option in ay markay gobolka Bari iyo meesha hadda ay joogaan inay qabsadaan kadib Afrika ay ku baahaan oo halkaas talis ay isku soo dhisaan bacdama carabtii wadamada carabta ku dagaalami jireen la soo jabiyay inay halka waxa la yiraahdo dib uga soo korseeyaan halkaas oo ah meel u dhow saliijkii iyo wadamada carbeed optionkaas uu ahaa optionka labaadna waxa uu ahaa inay carqaladeeyaan isku socodka ganacsiga adduunka ee badan carbeed iyo badahan kale ee ku tirsan Soomaaliya iyo adduunka intiisa kale oo marin caalami ah waa ogtahay oo hadda adduunkii waxa qaati laga taagan yahay qolada Yemen joogta xiltiinta la yiraahdo oo maranbiyoodka caalamiga ah Baabalmandab maanta adduunku ka marilayahay oo dagaalo iyo hawlo badan halkaas ka waday iyagu ma waa ka sii daran yihiin oo waa urur argagixisa caalami marka ujeedada argagixisadu waa ujeed fog oo dhibaato ku ah guud ahaan adduunka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland dawladda Puntland halkaasi waxa ay ku qaado guluf colaadeed oo aad diyaar garowgiisu waa u sareeyo waxaad warbixin ka siisaa bal howlgalku hadda sidee u socdaa maxaa guula oo ilaa hadda ay dawladda Puntland ka gaartay howlgalkan howlgalku wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay si dhow oo qorsheysan oo xeelad dagaal iyo tab dagaal intuba aysan ka marnayn iyo waxa weeye dawladdu ay u qorsheysay u socdaa halka argagixisada waxa lagaga saaray dhulkii ay hore u haysteen buuraha Calmiska ay ka haysteen qiyaas marka ku siiyo boqolkiiba 75 waa laga saaray 25% ayaa nimanka maantay ay ugu nool yihiin ama ay isku soo aruureen kuwaas oo maaragtay tabartooduna aysan ahayn awoodii shalay ay lahaayeen iyo isku xirka ay shalay lahaayeen iyo taakuladii iyo nidaamkii shalay dawladnimadii u dhisnaayeen iyo qaabka u diyaarsanaayeen shalay maanta ma ahan dawladdu waxay ka burburisay ku dhawaad 18 talis oo kala waaweyn oo yaryar godad difaaciye u ahaa godad sahay iyo talisyo u ahaa agabyada iyo dhaawac dawooyinka iyo raashinka iyo rasaasta ay ku geysan jireen ceelal ay hore u haysteen biyaha ay ka cabi jireen baadama dhulkaasi ay dhul buuralay oo ceelashu inay laga qodaa ama ceelal badan ba aysan ku ooli karin dhammaan saacadaas iyo talisadaas dawladda ay ka qabatayna dawladdu waxay ugu tagtay wax walba oo macluumaad ah haday noqon lahayd baasaboorradoodii haday noqon lahayd telefoonada ay isticmaalayeen haday noqon lahayd dawooyinkoodii iyo kitkoodii haday noqon lahayd rasaas iyo hub kala duwan wax walba oo xog ahna dawladdu bacda hawlgal ayay
adduunkooda u soo bandhigi doontaa waxa meeshaas lagu soo arkay cajiibka. Waa tahay Timire dawladdu hore waxay u sheegtay in halkaas ay kula dagaalamayso kooxo ajaanib ah oo wadamo kala duwan ka soo duulay. marka maxaa nooga sheegi kartaa dalalka ay ka soo kala jeedaan dadkan? walaalow dadkan waxba qarin mayno, dhulal badan bay ka yimaadeen. Marookiyan baa ku jira, Ethiopian baa ku jira, Iraaqiyan baa ku jira, Sacuudiyan baa ku jira, dalal fara badan, Suuriyan baa ku jira, Yemeniyiin baa ku jirta. waxa la yiraahdo qaybtood Asian weeye, qaybtood Yurub qayb ka mid ah ka yimaadeen. yacni marka aan ku leeyahay meeshaasi waxa dawladda Puntland ay kula dagaalamaysaa waa cadow koowaad ee marka koowaad diinta islaamka, marka labaad waa cadowga ummadda Soomaaliyeed. meeshan dagaalkaani ka socdaana waa dagaal ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda lagu difaacayo. waxaan aaminsanahay in Puntland ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan moorabkeeda iyo awoodeeda ay aaminsanahay ilaahayna tawakkal saaranayno inaan isku filannahay. waxa jirtay la arkay maalmihii ugu dambeeyay ciidamada oo soo bandhigaya meydad. marka guud ahaan maxaa nooga sheegi kartaa tirada dhimashada ama daacish ha noqoto ama xataa ciidamada qudhooda ha noqoto? maxaa dhimashadu waa imisa hadda? xogta dhimashadu inta aan hayno waxaan ku qiimeynaynaa fooso wax la yiraahdo inteeda cadowga ah oo baa foosada ka baxday dhimasho iyo dhaawacba. sababtoo ah dhaawacooda ayaga dhimasho waxba ma dhaamo, waa niman aan dhaawacooda qalliinkii u baahan aan qali karin. talisyo ay hadda dib ugu laabtaan oo gaadiid bixin karaan uusan jirin. iyaga waxa la yiraahdo aan operation nooc la doono ku geli karin. dhaawacyadooda qayb ka mid ah ayagaa la sii leynaya, qofka markay qaataan saan xog looga helin jidkay ku dilaya. marka waxaan qiyaasaynaa oo aan xogta gudbinaynaa ay tahay waxa foosada ka baxday 300 rag aan ka yareen oo cadowga ah. waa dhimasho iyo dhaawac aan baahin karnaa aan kula wadaagi karaa. marka sidaas ku leeyahay waa number aad u weyn. 300 dad ku dhow waa dhimasho iyo dhaawac marka xogta aan hayno iyo xogaha sirdoon aan hayno ay muujinaysaa. inta hadda meesha ku hadhayna tiradooda ma rabeen sheego sabab amni dartood, laakiin wadadii kuwii hore ay mareen ayaan u qorsheynay inay maraan. ciidamada Puntland dhimasho iyo dhaawac waa ku talagaleen. General Faarax Xanaan oo kamid ah saraakiishii howlgalka nooga dhaawacmay waxa la yiraahdo kelmadii uu isticmaalay geerida iyo dhimashaduba waa guusha waxa weeye in cadowga laga guulaysto ayay tilmaamta. annagu dhimasho iyo dhaawac qasanmayno waana soo gaadhay. askar iyo saraakiilba waa naga dhimatay. ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo. shahiidiin bay ahaayeen dagaal xaq oo jihaad ku jira. laakiin number cayiman oo aan hadda ku sheegayo gooranayo ciidamada dawladda Puntland khasaaro dhimasho iyo dhaawac intaas ka soo gaartay ma jirto sababo protocol amni darto. ugu dambeyntii Timire, markaad xaaladaha guud aad eegto dagaalkani waqti intee leeg ayuu sii socon karaa ayaa is leedahay? dhowr dagaal oo kharaar waa ay dhici doonaan oo la yiraahdo si fiican la isku dhexgalo, faraha la isku tago. laakiin ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa dagaalkan muddo kooban oo aan hadda cayimaad sax aan bixinayn inuu ku soo dhamaado oo ka yar in badan xilligii dadku ay filayeen. aan u dhaweyn waqti kooban inuu dagaalkaasi ku soo dhamaado ayaan rajaynayaa. ama ku kalsoon sida howlgalku u socdo, tabarta awoodda iyo waxa weeye quality ciidamada difaaca Puntland iyo dawladda oo dhulka Puntland ka dhigno meesha kaliya Soomaaliya ka caagan argagixiso oo ah zero terrorism land.